injiilka sida Mataayo soo qoray cutubka 17 lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday Butros iyo Yacquub iyo walaalkiis Yohana oo wuxuu keligood geeyay buur dheer kortoodana ayuu ku bedelmay wejigiisuna sida qorraxda oo kale ayuu u dhalaalay dharkiisuna sida nuurka oo kale ayuu u cadaaday oo baleeg waxa iyaga u muuqday Muuse iyo Eliyas oo la hadlaya isaga markaasaa Butros u jawaabay oo wuxuu ciise ku yidhi Sayyidow waxa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno haddaad doonayso 3 waab ayaan halkan ka dhisayaa mid adaan ku dhisayaa midna Muuse midna Eliyas intuu weli hadlayay daruur dhalaalaysa ayaa hadhaysay oo cod baa daruurtii ka soo baxay oo yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay maqla isaga xertiina goortay maqleen ayay wejigooda u dhaceen aad bayna u baqeen markaasaa ciise u yimid oo taabtay oo ku yidhi kaca hana baqina goortay indhahooda kor u qaadeen cidna ma ay arkin ciise keliya maahe markay buurta ka soo degayeen ciise ayaa amray oo ku yidhi ninna ha u sheegina wixii aad aragteen intaan wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo sara kicin xertii waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba culimmadu maxay u yidhaahdeen Eliyas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run Eliyas waa imanayaa oo wax walba ayuu soo celin doonaa laakiin waxaan idinku leeyahay Eliyas horuu u yimid wayna garan waayeen laakiin wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen isaga sidaas oo kalena wiilka aadanuhu xanuun buu ka heli doonaa iyaga markaasaa xertii garatay inuu kala hadlayo Yohana baabtiisaha goortay dadkii badnaa u yimaadeen ayaa nin u yimid isaga oo inta uu jilba joogsaday ayuu ku yidhi Sayyidow wiilkayga u naxariiso waayo suuxdin buu qabaa oo aad buu u xanuunsadaa oo marar badan wuxuu ku dhacaa dabka marar badanna biyo oo waxaan u keenay xertaada wayna bogsiin kari waayeen ciise wuxuu u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daranu oo madaxa adagu ilaa goormaan idinla jiri doonaa oo ilaa goormaan idin dulqaadan doonaa halkan iigu keena isaga markaasaa ciise canaantay oo jinnigii waa ka baxay saacaddaasna wiilkii waa bogsaday markaas xertii ayaa keli ahaan ciise ugu timid oo ku tidhi annagu maxaanu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi waa rumaysad yaraantiinna aawadeed runtii waxaan idinku leeyahay haddaad leedihiin rumaysad inin khardal la'eg waxaad buurtan ku odhan doontaan halkan ka dhaqaaq oo halkaa tag wayna dhaqaaqi doontaa oo waxba ma kari waayi doontaan laakiin caynkan waxba kuma soo baxo tukasho iyo soon maahe intay Galiili ku warwareegayeen ciise ayaa ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelin doonaa wayna dili doonaan maalinta saddexaadna waa la sara kicin doonaa markaasay aad u calool xumaadeen goortay Kafarnaum yimaadeen waxaa Butros u yimid kuwii 2 daraakamo qaadi jiray oo waxay ku yidhaahdeen macallinkuunu 2 daraakamo ee cashuurta ahayd isoo ma bixiyo wuxuu yidhi haa wuu bixiyaa oo goortuu guriga galay ciise ayaa hadal hormariyey oo ku yidhi maxay kula tahay Simoonow boqorrada dhulku iyay ka qaadaan cashuurta iyo baadda wiilashooda ama shisheeyaha goortuu yidhi shisheeyaha ciise ayaa ku yidhi haddaba wiilashu waa ka reeban yihiin laakiin si aanan u xumayn iyaga badda tag oo jilaab ku tuur
oo kalluunka kolka hore soo baxa soo qaad oo goortaad afkiisa furtid waxaad ka heli doontaa istatir kaas qaad oo inooga bixi aniga iyo adigaba